السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا شانيلka karin iyo qurxin qaybta caafimaadka waxaana idin daadihinaysa anigoo ah Dr. Roon maanta waxaa ka hadli doonaa hooyada uurka leh iyo waxaa ka hadli doonaa fruityada mise waxyaalaha u fiican markay uurka leedahay inay isticmaasho iyo waxyaalaha kasoo rida iyo waxa la iskaga ilaaliyo miscarriage-ka haddii aan ka hadalno hooyada markay xilliga ay uurka leedahay waxaa la rabaa inay caafimaadkeeda ay ka taxadirto si muhiim ah si saaid ah because hadda waxay wadaa cunug ayaa caloosheeda ku jiro naf labaad ayaa caloosheeda ku jirto waa inay ka taxadirtaa waxyaalaha ay sameey karto caafimaadkeeda uga taxadiri karto waxaa waaye inay qudaartii ay badsato qudaaro badan sida aan meeshaan uga jeediin qudaaraha soo rich ku ah calcium iron vitamin A B فيتامينة بدن أيا كجيران كواس عافيمادkeeda iyo caafimaadka ilmaheeda u fiican sida iron-ka kale vitamin B-ga calcium-ka kubciska cunugeeda caloosha ku jira oo ka qayb qaadanayso hadana waxaa la rabaa maamada markay uurka leedahay inay biyaha inay badsato since maamada intay uurka leedahay waa inay biyaha badsataa biyahaas oo jirkeedana u roon ilmaheedana u roon waxaa la rabaa hadana inay dejisato hooyada jadwal dietkeeda ay ku kala ilaalsanayso inay dietkeeda ku fiirsato si ugu kala qaldoomin hadana waxaa la rabaa hooyada uurka leh inay check up aado ee dhakhtarkeeda la tashato daawada ay cunayso the type of medicine ay qaadanayso medication-keeda inay ka fiirsato inay camal ay weydiiso dhakhtarta excessive-ka medicine-ka waxyaalaha ay u tari karto cunugeeda harmful-ka ay ku keeni karto inay after 2 weeks check up aado waxay u fiican tahay check up-ka si daily naagaha hooyooyinka uurka leh u kala aadaan ay u kala caafimaad badan yihiin hadana waxaa jirto miscarriage-ka oo way ku dhacdaa badanaa naagaha pregnancy-ga way ku dhacdaa laakiin maxaa cause gareeya pregnancy-ga waxaa cause gareeya kale coffee-ga isbuucyada u horeeya markay qaadato babaygo kale raw dairy product-go kale waxyaalo badan waqtiga ee ugu horeysa uurkeeda hadana waxaa ugu daran stresska is the main problem of pregnancy-ga inuu soo rido ilmahana miscarriage-kana ka gareeyo meeshaas xilligaas stresska waxaa fiican inay iska ilaaliso hooyada uurka leh maadaama ay cunug caloosheeda oo ku jiro stresska uma fiicno healthigeeda uma fiicno walaa healthiga babygeeda uma fiicno waxaa la rabaa inay minimize gareyso inay isku daydo si u kala joojin lahayd stresska sidoo kusoo qaabilo waa inay ka taxadirtaa caafimaadkeeda iyo caafimaadka cunugeeda waxaa rajeynayaa inaa ka bogateen qofkii nagu cusub likes subscribe share dheh assalaamu calaykum waraxmatullahi